السلام عليكم weligaa adiga hurdada wax la yaab leh ma kugu yimaadeen oo ka cabsiyeen sida inuu ku dilayo oo kale kadib markaad soo toostid ma ogaatay inuu wixii ahaa riyo laakiin ha muuqaalkan ka uu ka duwan yahay kadib markii uu riyada ka soo kaxay wuxuu arkay wixii riyada ugu yimid ta kale adigoo barnaamij laga duubiyo cunto cunaya weligaa ma aragtay jin caadi ku soo eegaya ama waxaad garan weydid shakligiisa muuqaaladaas iyo muuqaalo kale oo ay ka mid yihiin meel lagu guray alaab oo laga dhex arkay gacan ka soo jeeda iyo muuqaalo kale oo xiiso leh sida gabadh dilaysay ilmo yar oo kaamiraduhu qabteen ayaad ku daawan doontaa fadlan intaynan muuqaalka bilaabin waxaan idinka codsanayaa inaad channelka subscribe saartid si aad maalin kasta muuqaalo xiiso leh ula socotid今から十数年前、中部地方のある公園のトイレで深夜妊娠中のmuuqaalkeenan ugu horeeya waxaa la soo dhigay YouTube-ka sanadii 2014 muuqaalkuna waxa uu ku saabsanaa nin lugeynayay waqti habeenimo ah meel isaga oo u soo socday meel inuu sawirro ka soo qaatay iyo muuqaalo gurigii uu doonayay isaga oo ku soo socdo waqti habeenimo ah ayaa waxa uu siiyay gal gurigii uu doonayay laakiin markii uu furay gurigii ee uu doonayay inuu galo ayaa waxa uu maqlay cod xagiisa dambe ah codkaas oo ahaa ilmo yar oo ooyay aad iyo aadna u ooyaya kadib dib ay ugu soo noqday gidaarkii agtiisa ee guriga ayaa waxa uu kala kulmay cabsi aad iyo aad u badanなおこの事件は未解決のsida aad wada aragtaanba ninkii waxa uu gidaarka ku arkay ilmo yar oo ooyaya waxa uu sir u soo dhawow si uu arko ilmaha yar inuu dhiig wax ku yaalo oo uu ka muuqday dhiig wax cas laakiin markii uu sir u soo dhawow waxa gidaarka dabadiisa ka soo baxday gabadh taas oo qaadaysay ilmaha yar ee ooyaya dhiiguna uu ku yaalo kadib ninkii waa uu naxay muuqaalkiina isagoo naxsan ayaa uu si degdeg ah u baqtiyay iyadii oo aan meel ay ku dhamaatay aan arkin事件で殺された被害者の霊なのだろうか。投稿者はもうこの場所へは恐ろしくて行くことはできないと語った。dadka ka hadlay muuqaalkan waa ay ku kala duwanaayeen fikradahooda dadka qaar oo commentiyada badanka fiidiyogan ama muuqaalkan waxay ku sheegayeen in ay ilmahan yar iyadu dhashay doonaysayna inay disho waxaan ku aasto sababtoo waxay yiraahdeen xilligan dambe waxay u soo baxday ee waqtigan dambe ee ilmahan yar dhiiga ku yaalo waxa soo dhan waxay cadeynayaan in ilmahan yar doonaysay inay disho fikirkiina waxaan rajeynayaa inaad commentiga ku soo qori doontaan sida caadiga ah dadka badankoodu waxay ku riyoodaan riyooyin argagax geliya cabsi geliya ku abuura cabsi aad u badan iyaga oo xitaa soo marto noloshooda oo dhan hal mar markaas oo riyo cabsi leh galaan in badan inta isku dayaan inay soo toosaan laakiin riyo ay ku jiraan marka ay soo toosaan iyagoo qaylinaya ay soo toosaan laakiin maanta wiilkan dhalinyarada ah aynu soo qaadanayno cabsidaasi waaba ay uga sii dartay riyadiisa cabsi kale ayaa u sii raacday riyadiisa waxa ay ahayd gabadh ayaa u timid gabadhaas oo qaabkeedu aad iyo aad u cabsi badnaa waxa ayna isku dayday inay soo weerarto oo ay disho laakiin kadib markii uu qolkiisa kaamiradiisa uu baadhay isagoo caadi ahaan iskaga baadhay ayaa waxa uu la kulmay cabsi aad iyo aad u badan habeenkii uu riyoonayay
sida aad wada aragtaanba sanduuqa ama kabadhka xagga ka soo jeeda ayaa keligii isagu isfuray waxaana ka soo muuqatay weji gabadh kaas oo aad iyo aad u cabsi badan sida ay u samaysan tahay iyo qaabkeeda waxaana markii dambe dhacday in wiilkii uu riyoodo oo isagoo qaylinaya uu riyadii ka soo kaco markii dambe uu kaamirada daawanayay ayaa waxa uu yidhi tii iigu timid riyada wax ay ahayd mid tan u eg isaga ayaaba qiray oo yidhi waxa ay u ekeed tan laakiin markiiba waxa uu go'aansaday inuu gurigan iskaga guuro waayo waxa uu yidhi gurigan waxaa degan jin habeen kastan waxaan ku riyoodaa riyooyin cabsi geliya bal ka waran haddii aad ku jiri lahayd booska wiilkan oo kale maxaad samayn lahayd gurigan ma ka guuri lahayd mise qolka keliya ayaad uga guuri lahayd bal ka waran booskan oo kale haddii aad ku jiri lahayd waxaan rajaynayaa inaad fikirkaaga commentiga ku soo qortid muuqaalkeenan saddexaad waxaa lasoo dhigay sanadii 2012 waxaanadna ugu noqon kartaa YouTube page-kan ee halkan idinka muuqda shashadan waxa uu ahaa waa TV laga soo deyn jiray cuntooyinka laguna tartami jiray iyadoo la cuni jiray shurbad iyo waxyaabo kamid ah oo waxyaabo kale lagu tartami jiray ama lagu baran jiray TV-ga barnaamij ka baxa laakiin kaamarada markii hore kuma aysan baraarugin waxaan aynu maanta soo qaadanayno laakiin markii dambe ee kaamarada uu ku baraarugay ninkii duubayay barnaamijka waxa uu la kulmay cabsi aad iyo aad u badan sida aad u wada jeedaan ama wada aragtaanba halkaas oo qaabilsan waxaa ka soo muuqday weji shakhsi kaas oo soo eegaya ninkan cuntada cunaya wejigiisan oo u eg mid aad iyo aad u cabsi badan qaabkiisa iyo shakligiisuna la yaab leeyahay dadka qaar ayaa yidhi waa dadkii barnaamijka la diyaarinayay laakiin raggii soo diyaarinayay barnaamijka ama duubayay waxay yidhaahdeen macquul ma noqon karto in halkaasi cidi ka soo gasho cidina markii hore ma aysan joogin booska uu ka soo muuqday shakhsigan la yaab kale waxaana la isku raacay inuu yahay waxaanijin kaas oo soo eegaya wejiga ninkan wax cunaya fikirkaagu adiga bal maxaa uu noqonayaa muuqaalkan waxa uu ahaa 2009 bishii February muuqaalkan cabsida iyo la yaabka leh waxaana lagu duubay ama laga dhexelay CC kaamarada markii dib loo baaray waxaana ahaa muuqaalku meelaha dadku isku yimaadaan inta badan ay wada degan yihiin ayaa qof kasta meeshan wax ayaa u dhigaya alaab kadib waxa soo gashay gabadh si ay u dhigto alaab laakiin markii ay dhigtay waxa ay aragtay wax aad iyo aad u cabsi geliya lana gariirtay kadib waa ay baxday waxa ayna u yeedhay wiil dhalinyaro ah si uu u arko wixii laakiin wixii waa uu waayay baadhis kadib laakiin waynu caddayn doonaa oo waynu isla arki doonaa waxa ay gabadhu aragtay marka ugu horeysa ee aad muuqaalka daawatid waxba ma arkaysid laakiin markii dambe ee lagu soo dhaweeyay kaamarada suuntan aad loo soo dhaweeyay lana cadeeyo waxa ku muuqanaysa gacan bini aadan waana taa ay ka naxday gabadhu markii ay aragtay gacan
bashar ama gacan qof taas oo meel hoose kasoo muuqata laakiin ta kasii cabsida badan waxa ay tahay markii wiilkii loogu yeedhay waxba waa ka waayay meeshii markii la fasiray ama dadkii ka hadlay badankoodu waxa ay yidhaahdeen waxa ay ahayd gacan qof taas oo go'nayd kuna dhex jirtay meesha hoosteeda laakiin markii la isweydiiyey maxaa uu wiilkii u waayay gacantii waxaa la yidhi gacantan waxa ay ahayd mid go'nayd kadib markii uu baarayay meesha waxa uu u tuuray meeshii ay ku jirtay dhinac sidaasi daraaddeed ayaa u waayay wixii gacantii ay gabadhu markii hore ay ka naxday waxaan rajaynayaa adiguba fikir ayaad leedahay fikirkaaga inaad kasoo dhiiban doontid commentigana aad kusoo qori doontid aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin muuqaaladan oo kale iyo muuqaalo ka xiisa badanba si aad u heshid fadlan channelka subscribe saaro gambaleelkana furo si ay maalin kasta muuqaalo xiiso leh kuu soo gaadhaan